بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسنا خيارتها وذيقة داونيسا كسو دواد ورقي عالمكا كودي وقودن بيود هذا هنا كلها داوتان بيجكن مغالورات كنتو سعوني بوين ادمو حتكم اغلي دونتان معلومات كو سابسن ساعده لصور عفي دخايمها اي سويدارسدين مريكانكا iyo إيران mareykanku wuxuu sheegay ilaa 6 doomood oo Iiraaniyiintu ay leeyihiin inuu uu gubay halka Iiraaniyiintuna iyaguna ay sheegeen ilaa 80 goobood ciidamada mareykanku ay degan yihiin oo wadamada khaliijka kamid ah in ay duqeeyeen haddaba sidee ay wax u jiraan waxaad u moodaa saansaantii xabad joojinta jabinteedii inay imika ay muuqato ayaad u moodaa intaan ku soo gudbin macluumaadka soo faahfaahsan fadlan muuqaalka leega saar oo iska share garay aynu ku bilownay saaxiibayaal dhanka mareykanka haddii aynu fiirino mareykanku wuxuu sheegay inuu Iiraan uu duqeeyay duqeynta Iiraan uu duqeeyna ay ahayd jawaab cadna ay u ahayd kadib Iiraaniyiintu markii laba markab oo amarka Hormuz lagu xiray ama awaamirta Iiraaniyiinta ay diideen halkaasi lagu gubay kadib habeenkii xalay ahaa mareykanku wuxuu sameeyay marka inuu sheegay inuu duqeeyay goobo military goobaha laga rido gantaalada iyo xarumo military inuu duqeeyay dhanka Iiraaniyiintu waxay sheegeen inaan meelo military aan la duqeynin laakiin duqeyntu ay jirto oo goobo rayid ah kaliya inuu mareykanku uu duqeeyay oo aysan jirin goobo military oo uu duqeeyay mareykanku Iiraaniyiintu waxay kaloo sii sheegeen iyaguna ilaa iyo markuu intaas mareykanku uu sameeyay iyaguna ay duqeeyeen ilaa iyo 80 goobood ayay sheegeen iyaguna inay duqeeyeen oo Kuwait iyo Bahrain ah Kuwait iyo Bahrain waxa degan mareykanka saligeediisa ugu badan ayaa ku yaala siiba Bahrain ayaa aad loo sii duqeeyay si Iiraaniyiintu iyagu ay sheegeen dhanka kale madaxweyne Donald Trump mar waxa laga weydiiyay xabad joojintii Iiraan iyo u dhaxaysay Washington ka waran taas uu xogaa uu ka gaabsaday oo ka muusa jawaabin laakiin taas bedelkeeda wuxuu sheegay in dagaalkii lagu qaaday Iiraan inuu ahaa guul military Iiraanna loo diidan yahay Iiraanu ka hortaaganahay hubka nuclearka in ay samaysato dhanka kale markii dagaalkan lagu qaadayay Iiraaniyiinta meelaha militariga iyo gobolka Kurdistan iyo magaalada Barda Abbas meelahaas lagu qaadayay amarkaas waxa si toos ah u dhiibay madaxweyne Donald Trump isagoo ku sugan dalkaasi Turkiga oo wadamada NATO ay iskugu imaanayaan oo halkaasina uu uga qayb galayo ayuu amarkaas madaxweyne Donald Trump uu dhiibay saas ayana duqeyntu ku dhacday Iiraaniyiintu waxa kale iyaguna ay sii sheegeen 80 goobood jawaab ka daran oo ka culus in ay dhiibi doonaan markay saas sheegay mareykanku isla haddana uu ku soo laabtay Donald Trump ayaa wuxuu sheegay isla cawada inaan si xun oo baan aan u duqeyno doonaa buu yiri Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan warbaahinta waxa la isku marinayaa hadallo aad u culus oo xanaf leh waxaad u moodaa xabad joojintii imika inay jabayso waxyaalihii dambe bal ka soo cusboonada odayaal muuqaalada kale ayaad ku daawan doontaan fadlan muuqaalka leega saar oo share garay halka markaas waa update nabaday